السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتو عن داوده كسو دhowow qayb kale oo cusub iyo casharkii tababarka saxaafadda ee Koronto Trainings. Haddii aad maanta ku cusub tahay fadlan subscribe dheh aladkana furo si aad markasta u heshid casharadan. Kusoo dhowow casharkeena maanta. Kulantii wacan daawade. Toddobaadkii hore waxaanu ka soo hadalnay qaybtii koowaad ee habka loo wareysto dadka mahadhada la nool. Toddobaadkana halkii ayuu nooga sii bilaabanayaa casharku oo inooga sii soconaya. waxaanu soo aragnay dadka mahadhada la nool macnahoodu waxa uu yahay iyo habka fursadaha waxyaabaha loo siiyo inay goobta iyagu xushaan in qof ay ku kalsoon yihiin ay keensadaan in su'aalaha ay iyagu maamulaan ay halkaas ay noo joogtay. qaybtana waxaanu ka bilaabi doonaa haddii qofka la wareysanayo maadaama qofkan waxa uu ka hadlayo ay tahay maskaxdiisa wax ku jiray oo uu dib u xasuusanayo waxa suurtagal inuu hadalka joojiyo qofkan. tusaale ahaan oo kale uu yiraahdo way soo socdeen kadibna usaas kale u aamuso markuu qofku marka saas oo kale u yiraahdo way soo socdeen kadibna markuu yiraahdo adigu marka ka wareysta ahaan kadibna maxaa dhacay ha oran sababtoo ah waxa laga yaabaa inuu isbedelo moodkiisa ama dareenkiisa waxa dib u tiraahdaa way soo socdeen kadibna hadalkiisa ugu dambeeyay dib ugu celi si uu halkii uga sii wado u xasuusto hadalkii dib halkii uga celi way soo socdeen kadibna markaas waxa sanaya way soo socdeen kadibna waxa dhacay la hadalka markaa ka soo wadaya hadii uu hadalka joojiyo sidoo kalena hadii su'aasha aad weydiisay qofkan uu dhibsado oo uu jeclaa uu doono inuu ka jawaabin ku dheh su'aashaas man ka dacaya miyuu ku dhibaysaa haduu yiraahdo ka jooji su'aash ha weydiin haduu dhibsanayo sababtoo waxa laga yaabaa su'aashaas aad weydiisay laftigeeda inay dhaawac maskaxeed dib ugu keento oo dib dhaawac maskaxeed ugu keeno hadii qofku uu ooyo oo uu la ooyo xaaladii aad geysay jooji wareysiga qofka BSc softy ama wuxuu ilinta isaga tirasi daji haki wareysiga xitaa waxaad fursad u siisaa qofkaas inaad ku tiraahdid waan joojin karnaa wareysiga birri waa sii wadi karnaa بريوان سوي ذكرنا واسكسر نقون كرنا هل كان مكتوجنا وقت قاعد بريك قاعد حرنا استقفكم هذا دقو مركا كدب دب حلق وعاد نقد دب وسمع لكن هكفى إذا سن درين كان قف كان كعاي اسبدلي مسكحي سن دب داوع أو نقطي إن شكله يكون معانيسو أو ورئيسي أو هم فرب بدن يوحس أتكو كان ستيب شو ورئيسك قف كمركو قيراده كدبنا دب أصي واحد هذا xilligaas ma sii wadana ma wada karnaa ma soo joojinaa birri waan ka dhayn karnaa option badan si waxa kale iyada muhiim ah waxa laga yaabaa qofka inuu ku sheego arin muruga leh oo ku dhacday waxa laga yaabaa arintaas murugada leh arinta dhibaatada dhaawaca u geysatay inaad su'aal damacad inaad ka weydiisid ogow su'aalahaagu laftigooda mararka qaar bay dhaawac sii geystaan waxa tusaale soo qaadanaya inaan la kufsaday baad wareegsanaysaa dabeetana waxay ku tiri 10 habeenimo ayay ahayd halkaasaan marayay laba nin ba ay daba timin ka war hadaad weydiiso su'aal ah adigoo gabar 10 habeenimo maxaad meesha ka sameynaysaa waxaad u la mid tahay kuwii dhibka u geystay dhaawac badid u soo geystay iyada khalad saartay sidoo kalena markii dhibkaas kaaga shakeyso asxaan u sameeyay fudud wax u weydii dareen adiga laftigaaga dareenkaagi hal aragto qofkan ha aamino qofkan dareenkaagi nooc walba yahay dareenkaaga arka laftigeeda ayaa dhaawac kala geysan karta oo waxa laga yaabaa qofkii inaad ku tiraahdid waan ka xumahay waxa ku gaaray mustaqbalkaaga bay saameyn ku yeelatay way baabi'iyeen riyadaada way baabi'iyeen waxa soo kale qofkii dhaawac uu soo geysanayaan qofka si degan ula hadal si caadiya oo dareen la ula hadal laakiin ha ka badbadin dareenka dhaawac u geysan oo ka ilaali wax dhaawac u geysanaya waxa kale iyadana muhiim ah qofkan magaciisa in la isticmaalayo in kale wajigiisa in la isticmaalayo in kale qofkan aad wareysatay ee dhaawac maskaxeed qaba inta badan dadkani kuma jiro xaalad deganaanshiyo oo uu kugu siin karo ogolaanshiyo inaad magaciisa isticmaashid xitaa hadii uu ku yiraahdo inaad wajigiisa isticmaashada magaciisa haduu xataa ku sheego xaalad uu go'aan sax ku qaadan karo kuma jiro maxaa yeelay waa cadiifadiisan yahay waxa kacsan damiirkiisa waa kacay marka qofkan waxa laga yaabaa in isagoo aan ka fiirsan uu ku siiyo go'aan adiga mas'uuliyadda tahay
كوريهان أما قفك باهنية أديك تهمسلي هذا إن قفكاس يعني وأقولات يعني ما جعسست ما شيء إنكله لكن إستجا معه وقدام بنتي باهنت ورئيسك قفك وحد فرصة كل هاي حتى أو أي تهاي إنك كلت تشتت مركا ورئيسك اللي باهنيه وكب حيا ورباهنته كهور أنت اللي باهن إنك أكنتد هدو إذا عادي هنا أدقيسيسد هدو تي في هنا أداوسيسد دبتنا أترهدد كورا ورئيسك هب سوق هاد أي هاد مدة كلا وقدام بيسوي حويه باهنت ورئيسك marka waraysiga intaan la baahin laftigeeda qofkan waxaad fursad u siisaa inuu helo chance uu dib ugu daawado u dhageysto hadii radio tahay ama aad ugu akhrisid hadii qoraal tahay waxan aad ka samaysay sheekadan si uu hadii wax uu dhibsaday ay ku jiraan uu u helo fursad inuu ku raado ka jar hadii okay ay tahayna loo baahiyo hadii uu isbedelay isaga fikirkiisa oo uu xitaa markaa go'aansado ha baahin waraysigana isaga fursad u leh isaga xaq u leh inaad baahin oo aadan baahin marka kadib uu ogolaanshiyaha ku siiyo ayaad waraysiga baahin karaysaa intaas ayaan ku soo koobayaa casharka ku saabsanaa habka loo waraysto dadka la nool mahadhada ama dhaawaca maskaxeed waa cashar dheer laakiin waan soo koobay adinkuna dib u raadsana oo dib u soo akhriya aad iyo aad baad mahadsantihiin waad mahadsantahay saad u daawatay waxaan u maleynayaa inaad wax badan ka faa'iiday fadlan haddii aad maanta ku cusub tahay subscribe deh alladkan furo waad nala wadaagi kartaa saaxiibadaada wixii su'aal ah talo iyo tusaale ahna waxaad igula soo xiriiri kartaa emailka ama ciwaanka Facebook ee xagga dambe aad ku arki doontid mahadsanid